nimankan dil toogasho ayaa lagu xukumay iyaga oo maqan ayay dawladdu amar ku bixisay in nimankan la soo qabto kadibna la toogto hase yeeshee hadda intii ugu badnayd waa la toogtay oo waa la dilay ciidamadii dawladda ayaana ilaa ay hadda baacsanaya intii hartay kiiskan aan ku xasuusiyo waa kiiska ninkii odaga ahaa ee walaweyn lagu gubi jiray sheekadan hadii aad xasuusato 12 ninkii dilay way الله نبغي محمد okay dawladdu waxay amartay marka in nimankan la soo qabto kadibna la toogto ilaa ay hadda qaar ayaa baxsada qaar badan oo kamid ah waa la dilay ila daawo labadan muuqaal mid waa shalay midna waa isbuuc ka hor nimankii oo baxsada ay ciidamada dawladdu mid u soo dilaya ila daawo waxa yar baan ka oran rabnaa marka muuqaalkan uu dhamaado xukunsanayaal baxsad ka ahaa cadaaladda horeyna maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ugu xukuntay dil toogasho iyagoo maqanayaal ah lana amray ciidamada inay ku keenaan nolol iyo geeri ayaa lagu dilay howlgal saf ballaaran ahaa kadib markii ay isku dayeen inay la dagaalamaan halyeeyada ciidanka ee ah gacanta sharciga yuusuf aadan xuseen suuley oo horey uga tirsanaa qawaariista ayaa ku lug lahaa isaga iyo maleeshiyad uu hogaaminayay weerar 27kii bishii sagaalaad ee sanadkii hore lagu qaaday warbiyood ay ku sugnaayeen xoolo dhaqato waxayna halkaasi aana qabiil ahaan ugu dileen dad gaaraya 14 qof oo rayd ah iyo dhaawaca 7 kale iyagoo isku ekeysiyey argagixisada afkana ku duubtay cimaamado si aan loo aqoonsan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo 20kii Noofembar ee sanadkii hore degmada walaweyn uga garnaqday kiiskan oo ay ku lamaanayeen kuwa kale ayaa isla 22kii bishaasi ka soo saartay go'aan yuusuf aadan xuseen suuley iyo maleeshiyad kale oo isagu horjoogu u ahaa ayaana lagu xukumay dil toogasho waxaana kolkaasi ciidanka xoogga dalka la faray inay nolol iyo geeri ku keenaan xukunsanayaasha baxsadka ka ah gacanta sharciga guutada 7aad ee ciidanka xoogga dalka oo fulinaysa waarankii maxkamadda ay jartay ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Dumay ee degmada walaweyn waxay ku dileen yuusuf aadan xuseen suuley sayid cali cabdulle iyo cabdullaahi karar ismaaciil oo xukunsanayaashii la baadi goobayay ahaa kadib markii ay isku dayeen inay dagaal uga hor yimaadaan ciidanka xoogga dalka taliyaha guutada 7aad ee ciidanka xoogga gaashaanla sare Axmed Gaashaan ayaa warbaahinta u sharaxay sidoo uu dhacay howlgalkan lagu dilay xukunsanayaasha maalmahan waxa socday howlgal balaaran oo lagu baadi goobayay dad xukunsanayaal ah oo geysay dambiye kala duwan kuwaas oo maxkamadda ay waaran u jartay operation-kaasna wuxuu socday muddo qiyaasta 2 bilood ku dhawaad ah ilaahay fadligiis qayb ka mid ah ayaa xalay lagu ogaaday tuulo leeyahay Dumay aagga ayuu ku jira waxa ku baxay ciidanka si wada jir u fulinay howsha sida booliiska iyo militariga halkaasna markii ciidanka ay gaareen waxa ka dhacay dagaal kooban waxaana ku naf waayay xukunsanayaasha qayb ka mid ah okay kan waa muuqaal isbuuc ka hor waxaana idin muuqda qaar ka mid ah in ciidamadii dawladdu ay dileen muuqaalkan ayaa haddana shalay mar kale la baahiyay muddooyinkanba nolol iyo geeri ayaa lagu raadinayay koox burcad ah oo dhowaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay ku xukuntay dil toogasho iyagoo maqanayaal ah balse shalay ayay suurto gashay inay ku baxaan gacanta ciidamada iyadoo weli kuwa kale oo firxad ah lagu baacsanayo baadiyaha deegaanka aqbari weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 7aad iyo booliska degmada walaweyn oo iskaashanaya ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha deegaanka aqbari weyne waxay ku dileen 3 ka mid ah maleeshiyad baxsad ka ahaa cadaaladda oo loo haysto dambiye kala duwan xuseen maxamed cabdulle maxamed wadani iyo shigshigow ayaa lagu dilay howlgalka kuwaasi oo qayb ka ahaa weerar lagu qaaday ceelka aqbari weyne oo ay ku dhinteen 4 qof iyo dhaawac 5 kale dilka 2 muwaadin oo rayd ah iyo falal kale oo ay ka mid tahay isbaaro baad looga qaato shacabka 3 la dilay oo ay wehliyeen kuwa kale ayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay 22kii Noofembar ee sanadkii hore ku xukuntay dil toogasho iyagoo maqanayaal ah kadib fadhi ay ka yeelatay kiiskan xilligaasna waxa ciidamada la amray inay nolol iyo geeri ku keenaan xukunsanayaasha labada taliye ee kala ah taliyaha guutada 7aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha saldhigga booliiska degmada walaweyn waxay faran yihiin in ay la dagaalamaan in maleeshiyadka labada dhinac ay dhigtaan wax isbaara ah ama aqbari weyn ha ahaato ama deegaanada kale hoos yimaado degmada walaweyn ha ahaato inay la dagaalamaan sidoo kalena ay soo qabtaan maleeshiyadkii faldambiyada ka geystay degmadani walaweyn ee u jarantaa waaranka sidoo kalena ay xukunka dil toogashada ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ninkan aad arkaysaan ugu qoran tahay wadani duqow
waa ninka loogu raadinta badan yahay dabcan aad ay u raadinayaan ciidamada dawladdu haddana ninkan wuxuu isticmaalayaa Facebook baraha bulshada isticmaalaya muuqaalo ayuu markaas soo duubaya soo noqotay ma naqba ku markaas muuqaalo ayuu soo dhigayaa wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaaga soo cumreeyo bisha Shacbaan oo ah Ramadaan kadib bishii ugu soonka badnaa subanaheena Muhammad nabadgeliye naxariis korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin inta dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda isagoo oo markaas goodinaya oo dhahay ciidamada dawladda waxa weeye waxaad naga heshaan baadleedi boostiyaal iyo muuqaalo inta uu soo dhigaya okay hagaag maxkamaddu sida ay sheegtay waxa ay ku heshay nimankan ay xukuntay oo dilka ku xukuntay falal dambi ah oo dil ah wana sababta loogu xukumay hagaag hase yeeshee nimankan si kaliya laab ah ayaa loo eriyanaya oo ay maxkamaddu iyo ciidanka dawladdu u eriyanayaan waxaana muuqatay nimankan oo la soo galiyay cudud xoogan la dul dhigay dabcan hase yeeshee waxaa jira dad nimankan waxa ay ku eedeysan yihiin wax ka badan sameeyay raggan waxyaabaha ay sameeyeen waxyaabo ka badan rag sameeyay baa jira rag waxaa jira rag dila qabiilo kale ka soo jeeda isbaarooyin dhigta dil geysta dhac geysta afduub haday raba mararka qaar geysta ayaa jira dadkaas maxkamadda maxaa u diiday in iyagana waaran ay u jarto ay soo qabatay maxaa u diiday ma qabiilka nimankaas baa ka tun weyn kuwan qabiilkooda ma iyadan u socon ma nimankan baa far kale gooniya ku godan tahay oo si gooniya baa nimankan loo abaaraya maxay tahay sababtu dabcan in qofkii dambi wada oo dambiile ah la soo afjaro oo ilaahay kuma samadiiday ummadda laga qabto wax fiican laakiin waxaa la rabaa cadaaladdu inay u siman tahay qof kasta qofna inay ka tagto qofna ay soo qabato oo ay eriyato cadaalad sax ma aha nimankan waxa lagu haystaa dil bareer ah oo aan la xiriir aan qabiil aanooyin qabiil baa wadanka ka dhaca waa la isdilaa rag baa baxsada ragina iyaga oo aan baxsan oo la og yahay inay aanooyinkaas qayb ka yihiin ama ay qarash iyo lacag ku taageereen ama ay hubay haayeen dhiibeen ama ay xoogooda geliyeen iyadoo la og yahay ayaysan maxkamaddu dhaqdhaqaaq noocaana sameyn sida caadiga ah aragno xagee hadaba wax iska qaban la yihiin isweydiinta su'aashaasi jawaab waafi ay u baahan tahay qof kasta oo ku xadgudba sharafka maalka iyo maaragtay nafta qof bini aadan ah oo Soomaaliyeed waa la soo qabanaya sharciga ayaa la horkeenaya hadduu dil geystay dil buu mudanaya hadduu dhac geystay xaqiisa laga goynaya wax kasta waxa weeye waa laga qisaasaya sharciga ayaa la marsiinaya waa wax fiican in la marsiyo ummadoo dhan baa qabta qofna inaan la cafin laakiin waa in loo sinaadaa qof kastaba uu sharcigu qabtaa والسلام عليكم. السنة إسلاميك أونلاين waxaa ugu bashaaraynaya ardayda qurba joogta inay ka baran karaan qur'aanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka iyo barbaarinta ubadka hab casri oo online ah adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda